xeer ilaalinta gobolka Mudug oo maxkamadda hor keenay oo ay kamid yihiin muuqaalada laga duubay marxuumadda warqadda dhimashada marxuumadda marag muujinta dambiga iyo markhaatiyaashii uu keenay oo hor keenay maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane hodan maxamuud diiriye oo maxkamadda horteeda ay ka qiratay jirdilka marxuumad saabiriin saylaan cabdille maxkamaddu markii ay aragtay doodafeedka xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu markii ay aragtay doodafeedka qareenada difaaca eedaysanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta iyo gabagabada qareenada difaaca eedaysanayaasha markii ay aragtay maxkamaddu codsiga eedaysanayaasha codsiga dhibanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay shareecada islaamka aayadda 178 179 ee suuratu al-baqara aayadda 32 45 ee suuratu al-maa'ida aayadda 33 ee suuratu al-isra maxkamaddu markii ay aragtay qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dambi dhacay eedaysanayaashuna ay yihiin kuwii galay go-aanka maxkamadda darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo waxay ku xukuntay dambiile hodan maxamuud diiriye inaxaawo xasan 34 sano jir ah dil toogasho ah oo ah Alaamuso maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiile hodan maxamuud diiriye inaxaawo xasan 34 sano jir dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad saabiriin saylaan cabdille maxkamaddu waxa ay ku weyday eedeysanaha koowaad cabdicasiis nuur xaashi calas eedeysanaha labaad cabdicasiis nuur xaashi calas qodobada xafiiska xeer ilaalintu ay ku soo eedeeyeen ee ah 432 448 waxayna maxkamaddu ku heshay qodobka 430 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay dambiile cabdicasiis nuur xaashi calas in arda maxamed 1 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $500 cidii aan ku qancin fadhiga go-aanka maxkamadda racfaan ayaa u furan waana mahadsantihiin